السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا ومحي ويلكم بلان waxaa laga yaabaa inuu laba qaybood noqdo maadaama mowduuc dheer uu yahay qorshaha aad dejinayso ka hor inta aadan dadka keenin ayaa la yiraahdaa welcome plan kan waa qayb muhiim ah oo application-ka raaci doonta marka waxaa loo baahan yahay shanta qof ee dadka keenaya in qorshahan ay dejistaan dad kadibna markaasi kadib application-ka ay raacinayaan markaasi kadib marka application-ka ay raaciyaan waa laga ogolaan karaa waana lagu soo celin karaa oo waxa la dhihi karaa waxba ka dhiman ee soo dhameystira marka waa mowduuc dheer oo loo baahan yahay shanta qof in ay diyaariyaan welcome plan-ka ama qorshaha ay dadka ku soo dhaweynayaan ka hor inta aysanba dadkaasi keenin haddii welcome plan-ka ama qorshahaasi uusan kuu qornayn oo application-kaada marka aad dirayso aadan raacin maba la aqbalayo application-kaada oo dib ayaa lagugu soo celinaya waxaa lagu leeyahay welcome plan-kaada oo faahfaahsan halkan kama aragno marka welcome plan-ka waxa uu ka koobnaan doonaa dhowr qaybood dhowrkaasi qaybood haddii aadan buuxinin micnaheedu waxay tahay in aysan suuragal ku ahayn qorshaha marka adeega dadka waxyaabaha aad u qabanayso waxaa kamid ah horta airport-ka inaad ku soo dhaweyso ayaa kow ka ah in financial support-igi inaad hayso lacagtii loogu talagalay inay diyaar ku tahay oo dadka inta qof ay yihiin waliba lagu saleynayo waxaa sidoo kale kamid ah housing-kii gurigii inuu diyaar ku yahay oo alaabtii iyo waxa dhan oo aad dhigaysa xitaa waad faahfaahinaysaa basic necessity ayaa kamid ah waxyaabihii laga maarmaanka gadaal ayaan ka faahfaahin doonaa qodobada laakiin marka hore waa idin dul maraya waxaa sidoo kale kamid ah essential documentation-kii waxyaabaha dadkaasi marka la keeno ay u baahnaan doonaan halka aad kala raadinayso iyo sida aad ula raadinayso inaad sharaxdo waxaa sidoo kale kamid ah public benefits and service-kii dowladda dadka qaxooti ahaan marka lagu keeno lacag ceyr oo kaasha iyo cunto ayay ku leeyihiin kaar cunto ah waxyaabahaas oo idil halkii aad kala raadin lahayd waa inaad faahfaahisaa health ayaa kamid ah iyo mental health service caafimaadka dadka marka la soo qaadayna caafimaad ayaa la soo mariyaa marka Mareykanka la keenana caafimaad ayaa la mariyaa meelaha aad geed lahayd isbitaaladii hadii dad xanuunsan ay ku jiraan sidoo kale meelaha aad la aadi lahayd inaad sheegto education ayaa kamid ah and health care hadii caruur ay ku jirto dad waaweyn ay hadii ay ku jiraan sidoo kale halkii aad geyn lahayd caruurta sidoo kale hadii caruur yar ay jirto meelaha caruurta lagu xanaaneeyo hadii aad geynayso childcare marka waalidiinta meel loo wadayo kale waxa sidoo kale kamid ah language-kii sida aan sheegaba dadka qaarkood waaweynka ah luqadda iskuulle inaad ka diiwaan geliso waxa kamid ah sidoo kale translation-kii dadkii hadii aysan luqadda aad ku hadlayso anaga Soomaali ayana kulli waa isfahmi doonaa laakiin luqadda aad ku hadlayso hadii aysan fahmin dad kale ayaa laga hadlayaa lacala hadii aad keenayso cultural connection-ki ayaa kamid ah dadkii Soomaalida aad ku xirto suuqyada aad geyso meelaha aad geyso community and cultural rotation-ka sidoo kale meelaha hadii dadku masaajida u dhow meelahaas inaad geyso waxa kamid ah employment-ki dadkii inaad shaqo la raadiso adiga laga raba transportation-ki meeshii baabuurka ay ka raaci lahayn meeshii ay uga degi lahaayeen inaad tusto transition to sponsorship from sponsorship sidii ay adiga kaaga wareegi lahaayeen inaad u diyaariso marka 3 bilood oo gacanta ku hayso waxa laga rabaa inaad waxyaabahaasi oo idil aad u dhameystirto ama qaar ay sugayaan ay noqoto aad u xareysay ama kuwa ay heleen ay noqoto marka gacantaada ay ka wareegayaan waxa sidoo kale kamid ah reporting and feedback marka 30 maalmood markii dadkaas aad gacanta ku hayso report ayaa laga rabaa dadkan waxaas ayaan u qabtay waxaasina uma qabanin iyo feedback waxyaabaha kale oo talooyin aad soo jeedinayso leedahay in dad ayaa report-ka sugaya marka 90 maalmood markay ugu dhamaatana report ayaa laga rabaa marka qaabkaasi ayuu noqonayaa in balaanka laga rabo ama qorshaha laga rabo inaad dejiso hadii marka aan si guda galo oo aan mid u sii sheego horta barnaamijkan tilaabooyinka aad marayso marka aad dhameystirayso waxa ay kala yihiin tilaabooyin dhowr ah marka hore shanta qof tilaabooyinka ay marayaan ka hor inta aysan dadka keenin horta inaad dhisto private sponsorship group-kii shantii qof inaad isheshaan ayaa kow ka ah tilaabada koobaad inaad background check martaan taasi weli ma furno oo hadda lama bilaabin background check inaad martaan training inaad complete gareysaan ugu yaraan hal qof oo kamid ah shanta qof haday wada sameeyaan kaba si fiican waa tilaabada saddexaad attend inaad ka qayb gasho application support sessionada wax badan ayaad ka faa'iideysaa inaad ka qayb gasho iyaduna waa muhiim marka qodobka hadda aan ka hadlayno waa kana marka complete your welcome plan inaad dhameystirto qorshahaada dadka aad ku soo
dhaweynayso. waxaa kamid ah sign a commitment form, iyadana way ku jirtaa form ballanqaad ah oo inaad ballan qaadayso dadkan waxaas inaad u qabanayso, sidoo kale inaad saxiixdo. kabacdi waxaa ku xiga fundraisingkii inaad samayso, waxaana ugu dambeeya markaa submit your applicationkaada inaad dirto. intaasoo tallaabo ayaad maraysaa, markaasi kadib ayaad waxaad diraysaa applicationkii. marka waxyaabahaasi oo idil inta badan waan hore uga soo hadalnay, waxaan rabay inaan dulmar idinku sameeyo. halkan aan ka bilaawno marka welcome planka qaabka aad u sameynayso, qorshayaas aad u sameynayso. housingkii oo kale, dadka marka aad guri u raadinayso, shuruudaha waxyaabaha lagaaga baahan yahay inaad marto waxaa kamid ah in uu ku yaalo meel rental rateskeeda uusan aad zaa'id uusan u ahayn, maadaama qarashkaada aad ku xisaabtamayso, iyo sidoo kale lacagta depositka oo aad bixinayso. waa inuu gurigaasi uu u noqdaa, haddii xitaa guri uusan permanent oo joogto ay u degayaan uusan noqonaynin, guri si ku meel gaar ah ay usii deganaan karaan ilaa inta aad guri fiican aad uga helayso. laakiin lama ogola dadkan inaad gurigaada geyso inta aad guri uga helayso, waa inaad meel kale aad u raadisaa. sidoo kale gurigaasi waa inuu u dhow yahay meel dadkaasi ay ka heli karaan transportationki haddii ay shaqadooda aadayaan iyo haddii ay adeegyo kale soo gadanayaan, meel transportationka uu u fudud yahay inay tahay. sidoo kalena in networkinka dadka kale ee wax ay kala dhexeeyaan sidoo kale meel ay ka heli karaan. sidoo kale waxaa kamid ah gurigaasi meel ammaana inuu ku yaalo oo uusan ku oolin meel ammaankeeda uusan wanaagsanayn. dadka lama ogolo meel ammaankeeda uusan wanaagsanayn inaad dejiso. waxaa sidoo kale kamid ah airportiga, markaa dadka aad soo dhaweynayso airportka inaad shakhsiyan ay tagaan 5 qof amaba qaar kamid ah ay tagaan. waxaa kamid ah sidoo kale in aad baabuur loogu talagalay in dadkaasi tirada intay yihiin soo qaadi kara. haddii ay caruur wataan waa inay baabuurtaasi kuraastii caruurta loogu talagalay ay leeyihiin. haddii lacala wax kale ay soo baxaan backup plan inuu jiro, inaad qorshe backup aad leedahay oo arintaasi ma baabuur kale uu jiro. haddii lacala dadkaasi boorsooyin fara badan ay wataan, baabuurka waa in boorsooyinka ay qaadaan, dadka waa inay qaadaan, caruur hadday wataan waa in kuraastii la helo. waxaasoo idil welcome plankaada ayaad ku qoraysaa, waa diyaarinaysaa, because dadka aad keenayso already maskaxda ayaad kusii haysaa dadka aad keenayso. haddii marka intaasi aan kaga sii gudbo, welcome planku marka waa qorshe ballaaran oo aad u dheer. waxyaabahaasi oo idil ayaa laga rabaa inaad samayso. waxaa sidoo kale laga kamid ah in aad identify garayso oo aad sheegto adeegyada halka dadkaasi aad uga raadinayso, communityga halkaasi ayay joogaan. sidoo kalena in dadka 5 qof iyaga nafsad ahaantooda ay waajibaad kala qaataan oo loo baahan yahay qof waliba in meel loo xil saaro. hebel iyo hebel adinka garoonka dadka ayaa kusoo dhaweynaysaan, adinka guriga ayaad sii joogaysaan. waxyaabahaasi oo idil inaad samaysaan. marka basic necessity waxyaabaha laga maarmaanka oo loo baahan yahay dadkaasi in guriga loogu sii diyaariyo waxaa kamid ah alaabtii in guriga loogu sii diyaariyo. sidoo kale dharka haddii xilli qaboob ay kusoo aadeen oo kale, dharkii qabowgo kale in loo sii diyaariyo. markaasoo kale xitaa waxaa laga yaabaa airportka inaad ayagoo ay wataanba ay kusoo talagaleen, ama laakiin guriga aad ugu sii diyaariso. waxaa sidoo kale kamid ah baby haddii caruur ay la socoto, waxyaabaha caruurta ay u baahan yihiin sida tooyada, waxa ay ku ciyaaraan, waxaasoo kale inaad usii diyaariso. waxaa kamid ah taleefanadii ay qaadan lahaayeen, oo taleefanada halkan bishii ayaa lacag la bixiya. marka kuwa raqiisa inaad u raadiso, haddii qoys badan ay yihiin balaan fiican ayaa jiro oo lacag yar laga bixin karo. adigaa lagaa rabaa inaad 3 bilood u horeysa arrintaasi dabarto. sidoo kale waxaa kamid ah utilitieska, korontada iyo biyaha iyo meelaha aad ka bixin lahayd. waxyaabahaasi oo idil inaad sidoo kale aad kasii baaraan degto. qaybta documentationka marka la eego, documentationka micnaheedu waxay tahay dadkaasi inaad adigu la xareyso employment kaarkii shaqada inaad adigu la xareynayso, social security kaarkii adiga ayaa la tagaya meelihii. marka dadku waxaa la rabaa 5 qof inay isqaybiyaan, hebel iyo heblo amaba maanta adinka ayaa wadaya dadkan meeshaasaa geynaysaan, kaarkii shaqada iyo social security ayaad usoo xareynaysaan. change addresskan waa muhiim dadka qaxootiga lagu keenaya, gaar ahaan group 5 qofku ilaa iyo wadanka citizen uu ka noqonayo baasaboorka qaadanayo. haddii aad meel ka guurto oo aad meel kala degto, waxaa loo baahan yahay address change inaad samayso. online-ka waa laga sameeyaa, waraaq inta la buuxiyo la dirana way jirtaa. formkaas marka waxaa la yidhahdaa AR11, kaasi waa muhiim. haddii aad meel inta ka guurto meel kale aad degto, dowladdu kuma ogo, marka waa inaad bedeshaa. boostadana ma ahan inaad ka bedesho, online-ka ayaa in laga bedelaa inta badan, ama waraaq ayaa la buuxiyaa oo waa la diraa. marka caruurtu haddii caruur ay ku jiraan wiilal oo
da-doodu 18 ilaa 25 ay u dhaxaysan inaad ka diiwaan geliso selected service wax la yiraahdo oo ciidamada inay ka mid noqonayaan inaad u diiwaan geliso xagga marka ay ka soo baxayaan waliba waa laga soo saxiixaya Africa sidoo kale waxa kamid ah state ID inaad u sameyso ama driver license iyaduna waa ay kamid tahay arintaasina sidoo kale waa muhiim ayadana marka benefitska marka aad dadkan aad geynayso meelaha aad ka diiwaan gelinayso maxaa kamid ah waxa sidoo kale kamid ah dadkan in waxay dawladdu markay qaxooti ahaan dadka ay ku keento kaar cunto ay leeyihiin oo cunto bas lagu gadan karo arintaas waa muhiim dadku ka digtoonaadaan dukaan tag kaarkan lacag ku jirtay wax raashinka tan iska dhigaya laakiin kaash ahaan iyo si qofkii lagu helo arintaas waa dambi kaarkaas cunto oo kaliya ayaa lagu iibsan karaa wax kale lagu ma iibsan karo mid kaashana way jirtaa lacag kaash oo dadka la siinayo arintaas marka adiga laga rabaa inaad shanta qof ayaa laga rabaa inay dadka la apply gareeyaan oo ay la raadiyaan arintaasi hadii ay kaarkii cuntada tahay iyo hadii ay kaashkii tahay iyo hadii caafimaadkii ay tahay kaarkii caafimaadka dhamaanba adiga ayaa laga rabaa inaad dadkaasi aad la raadiso oo meelaha xafiisyada dawladda ay ku yaalaan adiga ayaa la tagaya oo dadkaasi la soo diiwaan gelinaya dadka shanta qof dhinaca caafimaadka hadii aan eego dadku markay xagga Afrika ka soo baxayaan caafimaad ayaa la soo marsiyaa waa la soo baara laakiin marka Mareykanka yimaadaan mar kale waa lagu celinaya sababta loogu celinayo waxay tahay hadhowdi green cardka markay xareynayaan waxa laga rabaa dadkaasi talaalkooda in la helo talaalkaasi marka wuxuu yahay ama hadii ay sidoo kale waxyaabo kale laga baarayo sida TB-da iyo waxyaabo fara badan ee kolka caafimaadkiisa guud ayaa qofka la baaraa marka uu Mareykanka yimaado xaggan waa lagu soo baaraa marka waxa kamid ah qofkaasi hadii caafimaad uu xanuunsan yahay sidoo kale oo wax cudurro ay jireen in la ogaado sidoo kale waxa kamid ah in dhakhtar aad la xiriiriso hadii caruur ama dad waaweyn ay ku jiraan oo si markii ay xanuun u qabto sidoo kale ay ula xiriiraan community health centers-ka inaad geyso meelaha sidoo kale dadkaas ay caafimaadka ka heli karaan ay ugu dhow marka ay yimaadaan marka intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa qaybta koowaad qaybta labaad la soco marka hadii aad leedahay